yaad leedahay Cabdirashiijana way dileen ma cid baad farta ku fiiqaysaa يا Cabdirashiijana ma cid baad uga shakisantahay inay dileen lacalaba hadiiba uu dhintay soo dhawaada qiyaastana daawanaysay waxaan doonayaa inaan idin la wadaago dhowr qodob oo markaas gudaha waddanka Soomaaliya ku saabsan aadna loo hadalhayo waa qodobka koobaad maxaa ka jira inuu geeriyooday wasiirka hore ee amniga Jubbaland wasiir Janan sidoo kalena saaxiib dowla ah dowladda farmaajo aadna uga soo horjeeday Kenya Jubbaland iyo mucaaradka xilligii farmaajo waxaan kaloo aan doonaynaa inaan idin la wadaago khilaafka cirka isku shareeray ee u dhaxeeya mahasalaadii shirkadda Hormuud Telecom ee Soomaaliya xildhibaano fara badan oo maanta hadlay ayaa waxa ay sheegeen in qof walba uu hub iyo qore haysto haddii uu mahasalaad waxa uu wada u joojin waayana ayaguna hubkooda la soo bixi doonaan dadka shacabkana ay isdifaaci doonaan waa haddii aan ganacsatada la dhowrin Soomaali kullu waa waysan yihiin mahasalaad isaan ku sii socdo nin wal qoriiso soo qaadanaa cid laga baqay ma lahan marka hore waxaan doonayaa inaan arrinta Janan aan eegno mid ka mid ah ogaansiyada wasiir Janan ayaa waxa uu sheegay in wasiir Janan la dilay oo la khaarajiyay isla mar ahaantaana wuxuu sheegay in ay dileen wasidoo hadalku u dhigay wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Kenya iyo sidoo kale Aadan Barre Ducaale iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha waddanka Kenya Cabdirashiijana ma cid baad uga shakisantahay inay dileen hadiiba uu dhintay ها وابو عدي آدم برد على محاكو على هولدان كسميين وعيدمada diray ninka la wareysanayo tafsiiraadkana waxaa Axmed Madoobe ayaa sidaas sheegaya wuxuuna sheegay in meydkiisa la jarjaray barcila intii la geeyay isla mar ahaantaana damin lagu dilay wasiir Janan laakiin dad badan waxay leeyihiin uu soo jawaabi lahaa wasiirka arrintan haddii ay been tahay ama wasiirku uu nool yahay halka dad kale ay ku doodayaan in warkan uu yahay war ujeed kale laga leeyahay laakiin arrintu weyn waxay tahay in ninka hadlahayo uu sheegayo nin ogaansan inuu yahay arrinta uu ka hadlayana ay tahay arrin xasaasiya oo aan nin mas'uul weyn wasiir Janan dad badan ay way yaqaanaan wuxuu hore u soo noqday wasiirkii amniga ee Jubbaland waxa uu saaxiib dowla ahaan jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe markii farmaajo Axmed Madoobe ay isgaleen xilligii dowladda farmaajo ee gobolka Gaday iyo khilaafka baan u taagnaa waa ninkii garabka weyn u ahaa Axmed Madoobe kadibna farmaajo laf dhungasha ku noqday laakiin markii dambe intii dowladda farmaajo Fahad Yaasin tuleeshiyay ee dhinaca kale ka soo jeestay kadibna Axmed Madoobe cagta u saaray gobolka Gadana ugu dambeyntii gacanta Axmed Madoobe ka faramaroojiyay laakiin haatan wasiir Janan tan iyo markay dhacday dowladdii farmaajo wuxuu ahaa baagamuudo wax ila muusan ahayn Axmed Madoobe isaga la isma tusay sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkaana waa tii uu markuu mucaaradka oo Xasan ahaa isaga iyo mucaaradkii kaleba dhinaca farmaajo uu sirjirin jiray marka halkaasna wajubayaal marka indhaweytu wuxuu ahaa dabad wareeg dowladda Kenyana barigaas waatay wadatay Axmed Madoobe iyo mucaaradkii Soomaaliya oo xilligaana iyadana uu ka soo horjeestay gobolka Gadana dagaal Kenya ka dharo ka dhacay ayuuba qayb ka ah markaas dowladda madaxweyne farmaajo ee xilligaasi garab siinaya marka saddex cadow ayuu lahaa madaxweyne ayaa la sheegay wasiir Janan laakiin haatan warkan soo yeeraya oo qayb kamid ah warbaahinta Gado iyo Jubbaland ba ay tibinayaan waxay tahay inuu geeriyooday inkastoo aynan dhinacyo kala duwan aynu la xiriirnay oo kala duwan aysan xaqiijin karin in uu geeriyooday haddii uu nool yahay oo warkaasi been yahayna waxaa la filayaa inuu asagu ka hadlo haddii ay markaasi warkaan run yahayna waa run oo wasi cadaan doona oo wararka la xiriira way iska soo daba dhici doontaa laakiin warka ugu waxay tahay inuu gaaskaas hadlayo ee codkiisa aad maqasheen uu sheegayo in ninkaasi uu dhintay qodobka kale waxa weeyaan shirkadda Hormuud iyo khilaafka u dhaxeeya taliska Nisa ay cirka isku shareeray mahasalaad ayaa weerara aan kala go'ol ahayn wuxuu ku qaaday shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiineed ee geyga Soomaaliya ugu weyn kadibna waxa ay shirkadii soo saartay war saxaafadeed dheer oo kaga hadlayso dhibaatada weyn ay Nisa ku hayso xildhibaano badan ay Nisa taageeray kuwa badan xildhibaano fara badan waxay taageersan yihiin shirkadda Hormuud bal qoraalkan aan eegno shalay oo ahayd 14 bisha ayaa waxa ay xarunta shirkadda Hormuud Telecom iyo sidoo kale Salaam Banki ee ku yaala Tarbiyano soo weeraray ciidamo hubaysan oo ka socda hay'adda nabad sugidda qaranka waxayna markaasi madaxda shirkadaasi iyo bangiguba ay xaruntaasi
ka dalbadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqyada EVC balaasyada iyo akoonno bangi oo ay leeyihiin markaasi muwaadiniin Soomaaliyeed sidaas qoraalka waxay sheegtay shirkadda Hormuud oo waxay sheegtay in dadkaasi NISA ka socda mas'uuliyiinta NISA ay dalbadeen dad ayagu ay raadinayaan xogtooda iyo lacagahoodii akoomadoodii waxa galay wax ka soo baxay in la daabaco laakiin Hormuud diiday maamulada Hormuud Telecom iyo sidoo kale Salaam Banki xarunteeda oo cuskanaya baa la yiri shuruucda dalka waxa ay saraakiishaas u sheegeen in aysan la wadaagi karin xogta macaamiisha sida uu qabo markaasi qodobka 18aad farqadiisa labaad ee sharciga nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya shirkadu ma bixinaysa bay tiri xogtaasi macaamiishaasi sidaas ayayna ku diiday kadibna nasiib xumo bay tiri shirkadu ciidanku waxa ay khalkhal galiyeen bay tiri hawlihii shirkadda iyo bangiga waxayna albaabada isugu dhufteen xaruntii shirkadda waxayna xabsiga u taxaabeen laba ka mid ah shirkadda shaqaalaheedii laakiin qoraalka markii ka soo baxay Hormuud kadib NISA iyaduna warqad kale Twitterka ku soo halgaaday oo waxa ay tiri hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyadoo oo ka duulaysa baa la yiri codsi uga yimid shirkadda Hormuud 26 bishii December 2023 way ku weydiisatay inay ka caawiso dhibaatada ay kala kulanto argagixisada hay'addu waxa ay baaris ku sameynaysay ay ku ogaatay in markaasi qaar ka tirsan shaqaalaha Hormuud ay wada shaqayn iyo xiriir la leeyihiin argagixisada sidaas NISA tiri waayahay intaas kadibna waxay sheegtay dabcan NISA in ay arintaasi ay u timid oo ay dabagalkuna qorshahaas u sidaas awgeed bay tiri hay'addu waxa ay shirkadda ka dalbatay in ay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bangiga iyo adeegyada EVC balaaska sida ku cad qodobka 8 farqadiisa saddexaad ee sharciga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hay'adda howlkii shirkadda waa laga sugayay in ay markaasi hay'addu ay ku gacan saydhay shirkaddu ay ku gacan saydhay dalabkii NISA ayay tiri hay'adda NISA qoraal ka soo baxay sidaas darteed shirkadda waxa ay si toos ah ugu tumatay bay tiri sharciga hay'adda waxa ku tumatay shirkadda Hormuud sidaas waxa tiri NISA sharcigaas hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka in qodobkiisa markaasi toddobaad waxaana sharcigaasi loo adeegsadaa argixisada ugu dambeyntii hay'adda iyada oo markaasi gudanaysa waajibaadkeeda waxa ay markaasi qabatay oo tilaabo waajib ah oo sharciga waafaqsan ay ka qaaday qayb kamid ah dabcan waxayna soo xirtay qaar kamid ah howlwadeenadii shirkadda oo is-hortaagaasi ku sameeyay shaqada hay'adda fiiro gaar hay'addu marnaba ma doonaysa in ay markaasi lala wadaago xogta muwaadiniinta Soomaaliyeed kolley waxa ay doonaysay inay hesho xogta iyo dhaqdhaqaaqa argagixisada sidaas ayaa qoraalkaasi ka soo baxay shirkadda waa hay'adda iraahda NISA ee ku socday shirkadda Hormuud Telecom xiisadoodu cirka isku shareertay qayb ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan doonayn in ganacsiga Soomaaliya la dhibaateeyo ayagoona wacad ku maray inay garab taagan yihiin ganacsatada gaar ahaan shirkadda Hormuud waxayna NISA ugu baaqeen in waxyaabaha ay faraha kula jirtay ay ka waantoogaan